dowladda federaalka Soomaaliya ee uu madaxweynaha ka yahay Dr. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxay cagta saartay wadadii ay ku aaqireysatay dowladdii ka horeysay ee uu madaxweynaha ka ahaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Dowladdii Farmaajo ayaa dhammaadka xilligii jiritaankeeda waxaa hareeyay mucaarado kaga imaanaysa midowgii musharaxiinta oo xilligaasi ay horkacayeen madaxweynaha hadda talada dalka haya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha hore Shariif Sheekh Axmed, iyadoo sidoo kalena ay jireen xubno kale oo aad u cadcad kuwaasi oo aan ka xusi karno xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo haddana ah mucaarad, iyo sidoo kale ra'iisul wasaarihii ugu horeeyay ee dowladdii madaxweyne Farmaajo Xasan Cali Khayre. waxyaabaha ay mucaaradka ku dhaliilayeen dowladdii Farmaajo ayaa ahayd in ay xukunka isku qoobtay islamarkaana aysan dhegeysan mucaaradka ka soo horjeeda iyo maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland oo iyaguna ka biyadiiday qaabka uu wax u waday madaxweyne Farmaajo. hadda sidii oo kale waxay mucaaradka dowladda madaxweyne Xasan Sheekh ku eedeynayaan inuu madaxweynaha uusan cidna dhegeysan islamarkaana uu iska iloobe ku dhaqanka dastuurka federaalka Soomaaliya oo qeexaya in masiirka iyo aayaka talinta dalka laga wada tashado. madaxweyne hore Shariif Sheekh Axmed iyo xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo shir jiraad ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa ku eedeeyay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud inuu qaadayo talaabooyin uu diidanaa markii uu shalay mucaaradka ahaa, kuwaasi oo ay ugu horeyso sida ay yiraahdeen in la laalo dastuurka lana yiraahdo cidna loo joojin maayo, taasi oo ay ku macneeyeen mid qar iska tuur ah. guddiga maanta la ansixiyey waa inay ogaataa horta dalkan sharci doorashana uu lahaa oon ka qayb galnay aniga iyo madaxweyne Sheekh Shariif iyo xataa madaxweynaha xilka hadda haya annagoo xisbiye ku meel gaara iyo wax ka sameynay sharciga doorashada. dalka sharci doorasho waa lahaa, guddi doorashana wuu lahaa, sharci xisbiyana wuu lahaa waan ka negotiate garayno qayb ka ahayn. wax hadda la sameynayo waxaa waaye saddexdiiba in la bedelo. maxaa loo bedelayaa ajenda ah qof shaati la eg inuu tusto. dadka Soomaaliya waa inay ogaadaan waana naga og yihiinba waxayna ku daalaan maaha. waxaan madaxweynihii hore uga diidaynana waxay ahayd waa intaas shaati kula eg tolanin oo adiga kugu jin ah. madaxweynaha uu nagula jiray Xasan Sheekh waagaas in shaati kujima la tasho uu nala diidanaa. hal cibaaro haddaan ku soo koobo waxaa waa kelimatu xaqin uriidu biha extension waay. waa kelimad xaqi qof iyo cod laakiin extension uu madaxweyne Xasan Sheekh u doonayo. ka falanqeeya siyaasadda Soomaaliya ayaa waxay qabaan qaarkood in madaxweyne Xasan Sheekh uu uga duwan yahay madaxweynihii hore ee Soomaaliya madaxweyne Farmaajo inuu hawsha doorashada qof iyo cod bilaabay iyadoo uusan waqtiga ka dhamaanin, walow lagu dhaliilayo isaga hudhiisa in uusan mudnaan siinaynin maamulada Puntland iyo Jubbaland oo muhiim u ah in dalka ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah. sidaas arrinta ku sii socotana waxaa la leeyahay madaxweyne Xasan Sheekh waxaa ka dhammaan doona waqtiga, waxaana sidaa ku bilaaban doona warqadihii ay beesha caalamka soo diri jirtay oo ay ku baaqi jirtay in la wada tashado, taasi oo aakhirkana keeni doonta in lagu laabto tendadii afisyooni. waxayna taasi ka dhigan tahay sida dad badan qabaan joog meeshaadi joog iyo 4 sano oo kale oo ka khasaartay Soomaaliya. adigu maxay kula tahay?